وعبسي سؤال أديت سؤال شو مدة بدن بيجو إن مسكحة يكون حسي سبب طلوع عرر ومشاريري واللابتي سوق حولان واللابتي وانصول لابتي كويتون ساعة إمرجنس حال ساعة كوي مال ماشي أنا بدي هيد نك سوق حولها كيما أنا كفو كيمي ما شاء الله CEOskii dadkeena waaweynka ah maxay aga maqan yihiin saaxadda internetka markii ugu horeysay aan barnaamij noocan oo kale kala soo qayb galaayo dadka aad aan u xiiseynayay anigoo maanta jaamacad xalay aan ka arkay waxaan qorsheynay inaan imaan doono waa laabtay suuq xoolaan u laabtay waan soo laabtay 12 saac waxaan maleynaa emergency hal saac ku imaad meeshan gudaheed su'aasheeda waxa waaye shirkadaha shaqaalaha oo shaqeysanayo in la bedelo cabsi daraadeed oo ka cabsanayo inuu ugu tago ama la bedelaba qofkii oo isku tiirsaneen oo marayo xaalad inuu ku adagto kale asigoo marayo shirkadaha qaarkood saas sameynayo maxaa xal noqon karo oo shirkadaha noqon karo sektarada kala duwan okay ninkaas uu ka sheekeeyay Cabdiraxmaan caqabada oo la kulmay ana agteeda ma taalaba waaga anagu dadka u baahanahay dadka noo yimaada aan tababarno waxay u badan yihiin markay muddo joogaan in ama ay meeshii kala furtaan ama ay meelo kale laga dalbado oo tusaale ahaan farsamada aan ka shaqeyno qofka nala shaqeyn jiray markuu meel kale aadayo wuxuu yiraahdaa waxaan ka soo shaqeyn jiray xadiid isla markiiba waa la hayr gareeyaa marka qofka farsamadiina bartaa ma dhulka ma dhaco anaguna ma siideyno cidna ma nacno dhammaan waxaan u maleynayaa inay shaqo la'aan waddan ka jirto walow ee intooda badan behind the scenes lagu kala bixin la ogeen dhinaca shaqaalaha markii loo soo laabto shaqaalaha waxaanu excuse ka dhiganaa kambaniye markaana in ay xirfad lahayn ka xadiid ahaan ka kambaniyaasha ahaan inta joogo maxaa ay ka sameeyaan dhinaca tusaale biro ma sameyno xadiid ma u degsanta strategy ah in koorsooyin birta sida loo sameeyo dadka bari kara ha noqoto ama lacag ha noqoto ee shaqaalaheeda suuqyada ku diyaarsanayso midda labaad brandska ay leeyihiin CEOskii dadkeena waaweynka ah maxay aga maqan yihiin saaxadda internetka tusaale hadduu maanta Abdixakiin internetkiisa dad ku tusi lahaa qaabka shaqada loo helo qaabka wax loo sameeyo ma inigu jirtaa marka ku celinta bulshada ahaan inaad waxbarasho siiso inta badan biraha markii lagu jiro waxaan soo import gareysanaa waxyaabaha u baahannahay ma inigu jirtaa strategiyadii waddanka lagu sameeyo birta wax walba u baahan tahay mishiinaheeda waxa dhan aan keeni kartaa barko waxaan islaahay horta fursad badan ma hayno kow oo shakhsiyan aniga social media waxa laga yaabaa one is weekly inaan mar fiiriyo ama eego okay interested kuma yihi very interesting laakiin positive ka ahi waa sax inaan internet ka galno oo la sheego hadda tusaale ahaan anaga shirkadeeda kale dadyo assumption ka haystaan waxay ku oranayaan ma dibadaad ka timi horta marka hore waxa la aaminsan yahay shirkadda inay leeyihiin shirkado waaweyn oo magaalada ka jira waxa la leeyahay shirkadaas ay hoos tagtaa mana hoos tagno wayna fiicnaan lahayd dadku inay ogaadaan waaqaca oo internetka la geeyo sidoo kale dhiirigelin oo dhinac basta dhiirigelin baa u noqon lahayd dhalinyaradii inay qofka laftigiisa wax qabtay markuu joornigiisa ka hadlayo waxa la yiraahdaa we learn by teaching marka adu ka waramayso joornigaaga adiga laftigaaga naftaada iyo safarkaaga wax ka sii baran hadda ka dambeeyo waan ku dadaali doonaa anaga slogan-keenu waa horumarinta dhismaha okay oo birta ku jirto okay imkaaniyaadka in bir la sameeyo markii koowaad aan safarkayga Turkiga tagay aan Istanbulka hore soo qaaday markay horaan aaday waxaan rabay inaan keensado machinery oo mashiinadaas tan soo qaado aan dalka ku sameeyo ilaa maadaama fresh ay wixii ku cusbay kambaniyada markaan bil ku dhawaad waxaan raadinaysan machinery oo heli lahaa maalintii dabaan nin Turkiyaan ah waxa cajiibka waxay ahayd inamadii aan ku degay ee waxay la raadinayay wuxuu baan marka meesha mar inuu kana rabaa wuxuu meelaan ku dhigdhigayn meel lagu sameeyay ma yaqaanaan war noocana rabaa kana rabaa qaab u raadiyaan ma yaqaanaan okay maalinta waxaan leeyahay war waxaad igeysan bal suuqa waxaan laga iibiyo suuqa birta marka nin Turkiyaan la sheekaystay wuxuu igu yiri shaygan in noocan oo kale uu sameeyo waxa mass production u baahan yahay halkan shay mashiinkiisu wuxuu joogaa $1 million oo kale laakiin muxuu soo saari karaa intaas mass production intaas oo shay marka waxaan kugu la talin lahaa intaad mashiin raadin lahayd in waxyaabihii diyaarsanaad qaadato
markii dalkiin su'aasha koowaad marka dibad aad lagu weydiinayaan waxa lagu leeyahay dalkaaga populationkiisu waa imisa halkan soo laandeeranimadu ma in reer ayaa tahay adduunka laandeeranimadiisu waxa weeye dalkeed tahay populationkaaga waa intee marka 10 iyo 20 milyan sheegto qofka ka xishooda wuxuu ku leeyahay Ethiopia suuq ma ka keeni kartaa ila internet ku baaraya markii uu moogtaan marka wuxuu ku leeyahay qofku niyo inta populationkaagu ma qaadan kara waxaan diyaarsan qaado arrinta birta haddana soo noqdo waynu gaari doonaa laakiin waxay u baahan tahay infrastructure badan oo dawladdii kama maaranto lightka oo jaban hadduu qaali yahay annaga weli waa nagu qaali haddii la yidhaahdo dab la dhalaalinayo dee waxaan birtu dab waa ciiddaasoo la dhalaaliyay waxay u baahan tahay dab aad u tiro badan markaa ma yaallo energygaas dalka weli ma yaallo waxaa u maleynayaa ninka suuq xoolaha ka imaada anaa ka fog ka imid maasha allah su-aasheeda ninkaa kuma socday kugu socotaa soo dhow ustaad waxaa kugu naqaanaa nin arrimaha bulshada inta badan ka shaqeeya afgoo markaan kasoo baxayay su-aasheeda webi isii qorneedba inaan fursaddan kugu helana aadaan u jeclaa waa cabsi su-aashaada aad iyo aad anigu horta fresh baan ahay last year jaamacadan dhigtaa weli wax shaqaa iyo wax CV ima diyaarsana suuqa shaqadana diyaar uma baahib waa inaan isdiyaariyaa marka hore laakiin waxaan ku jiraa fildi buug qoris ah ustaad waxaa jirta buug oon sanadka hore aan bilaabay inaan qoro oo laakiin weli gabagaba ama dhex marayaba waxaan kaa codsan lahaa mawduucaan ka faa'iidaysanayaa mawduuc wuxuu ahaa bridge buundadaa dadka gudbay in la gaarsiiyo dadka soo gudbi raba anigu waxaan ka mid ahay buundo adigu aa gudubtay nin hadda soo mari raba weli waxaan kasii faa'iidaysanayaa xeer ah hadda kahor aa sheegtay oo ahaa just do it now hadda ka faa'iidayso waay marka waxaan rabaa buuggaas maalintoo dhammaad hadduu ilaahay dho insha allah inaan contact aan wada helno buuggaasaan jeclaan lahaa inaad taxqiijin ama taxqiiq aad ku samayso weliba waxaan kuugu sii darayaa dad qoraalka ku baas oo qoraalka ku fiican oo xirfadooda iyo shaqadoodu ay tahay qoraa inaan kugu sii xidho si buuggaagu tayo u yeesho waxaan ahay arday dhigta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed khaasatan kulliyadda engineering mechanical engineering waxaan rabaa inaan laba su'aal ka kooban aan weydiiyo Cabdixakiim maadaama aad ka shaqaysid fildiga mechanical engineering wax la xiriira ardayda engineering ma siisaan internship khaasatan mechanical engineering maadaama aad ka shaqaysaan su'aasha labaadna waxay tahay shaqaalaha in kaga shaqeeya shirkadda waxaad sheegtay ilaa 3 qaybood intuba waxay ahaayeen technical wax la xiriira ardayda engineeringka ka soo qalin jabinaysa oo senior engineerska maxaa fursad uga banaan waxaa jira arday badan oo xirfadiina leh haddana barteen wadankana shirkadda markaas ama industry-gan uu kooban yahay dhinacaas marka designing-ka maxaa yacni uga banaan safarkii dheer aan ka soo sheekeeyay caawa last 2 years ama sanadkii ugu dambeeyay ama 2 sano ugu dambeysay next step-kii aan rabnay shirkadda ay doonaysay inay qaado waa qaadi la'aan waxaan shaqaalaysanay kambeeyo la talinta ganacsiga ah systemyo casri ah oo systemkan xisaabaadka iyo ERP systemka oo duuyo kala dabcan inaan dabaqno waa kaga shaqaysan kari weynay because of dadka noo shaqeeyay maaha dad skilled ah oo aqoontii formalka ay soo maray marka go'aan bay shirkaddu waxay ku qaadatay dadkaan iyadoo aan la dayacayn oo la tuuraynin aan dib u qaadano qofka hadduu ba secondary ka soo baxay laba qolo hadduu hoose dhex ka baxay iyo hadduu secondary ka baxay iyo hadduu jaamacad ka baxay saddexdaa levelba waxaa noo qorshaysan sanadkan noo qorshaysanayd inaanu dadka wixii danaynaya aan skillka barno waxaan samaynay groupka company kamida oo ah school farsamo oo internshipna noqonaya bin Daawud baan u bixinay maadaama Nabiilaahi Daawud uu ahaa aabihii farsamada bin Daawud baan u bixinay ilmo Daawud inaan ilmo Daawud soo saarno oo laakiin uu yahay qofku inuu ka soo baxay hoose dhexe ama sare ama jaamacad ka jaamacad waxa loo train gareynayaa si uu noqon lahaa team leader oo kale ka secondary ka soo baxay inuu technical noqdo kan hoose dhexe ka soo baxayna inuu noqdo farsamadii iyo caawiyay halbarkii uu ku bilaabo arintaas marka weyn baa nooga yaala oo iskuul soo bartay wuxuu yaqaanaa form master buu yaqaanaa maamul buu yaqaanaa macallin buu yaqaanaa nidaam buu yaqaanaa habsan buu yaqaanaa laakiin qofkan informalka aan ku shaqaalaysan waxa ma yaqaano maalinta wax barto waxa ka oranaya oran daga tigniyo ilaahay baa saaqada bixiyo iska shaqo tagaya
laakiin qofkan soo maray boroska soo maray very interesting marka waxaan caaw uga faa'iideysanayaa hawshaasi way bannaan tahay laakiin waan si aan loo soo yaacin waan reeshin garayn doonaa iskuulkan ku bilaabanaa deenta dadka active-ka ah ee attitude-kooda iyo skill-kooda iyo waxooda ay naafacaan baan shaqaalaysiin doonaa maxamed khaliif cabdi baa la yidhahaa magacayga ustaadu su-aashani muddo badan bay iga guuxaysay laga shaqaynaya biraha ama tii aabbaha ka shaqayn jiro oo kale runtii mushaharkeedu aad u yaryahay soomaaliduna waa ka caradhacay si loogu soo dhiirado maxaa kaaga qorshaysan mushahar kordhin shirkadda waxa ku samaysaa shaqaalaha si soomaalidu dhiirigelin ay ugu noqoto su-aashaas muddo badan bay ugu maskaxdayda ku quuxaysay sababta looga cararo waa mushahar yari waxaan rabnaa inaan mushaharka shaqaalaha loo habeeyo aan xitaa aniga kula hadlayaan biri kamaana ugu sii dherood horta waxa gacmo nadiif ay dadku rabaan Kenya jaamacadaha soo dhameeyay markaan waraysto wuxuu rabaa high salary waxaas mushaharkiina waa ugu fiican hadda shaqooyinka aan wadno ma jirto meel $20 maalintii lagu qaato ninka welka ma aha qofka ardayga ninkan soo eeg cilad kala jirto markaad qofka farsamada maanta qaadato oo 3 bilood joogto $7 ugu bilowdo sanadka koowaad 100 baan siinaa sanad baan haddana ku sii haynaa waayo haddii lacagta loo badiyo markiiba uu isma hadinaya xirfadiina ma sii kordhinayo laakiin xirfadii haddaad kaga xidho lacagtii oo tiraahdo kor u soco isna wuxuu leeyahay waa la dulminayaa waa lagu shaqaystaa waa kan laakiin isaga dani ugu jirtaa qofka xirfadda leh annaga ku baranaa maalintii minimum $20 waa 20 ku dhufo 30 maalmood waa $600 saaxiibayaal idinkoo maanta waxaad ila sii sagootidaan oo ila sii dhaweysaan cabdixakiim maxamed oo waay aragnimadiisa iyo safarkiisa curineed iyo shaqo wax weyn inooga horay maanta aad baa u mahadsantahay cabdixakiim thank you so much